بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kugu soo dhaweynaya macadka tababarada tiknoolajiyada ee Bondo magacaygu waa Abubakar Nasir maantana waxaan qaadan doonaa cashirkeeni shanaad oo aan ku baranayno koorsada Microsoft Word oo ah barnaamij qoraaleed loo isticmaalo in dukumentiyada lagu qoro noocyadiisa kala duwan marka ugu horeyso waxaan rabaa in dukumentiyada aan format gareyno waxaan soo kacsanaynaa marka dokumentiga aan hore ugu soo practice gareynay biology book ah waa kana file keena word documentiga halkan noo yaala biology book noo soo kacay marka ugu horeyso markaan soo kacayno documentigan qoraal yar aan ugu samaysan laakiin qoraalkaasi aad ma u format gareysano oo kaliya qoraal la sameeyay laakiin qoraalkeena wali ma aan qurxinin waxaan ka bilaabaynaa kow farta size-keeda sida loo bedelayo inta badan word marka soo kacay documentiga marka ugu horeyso size-kiisa waa 12 haddii aan u baahanahay inaan size-ka farta ama aan bedelno marka ugu horeyso qoraalka aad rabtid in size-kiisa aad bedesho kala dooranaysaa ugu horreyn qoraalkeena highlight saarina highlight marka saarna kadib waxaan tagaynaa font size by default 12 oo ka bilaabaa laakiin aan sameynayna ishaan furina tusaale ahaan waxaan ka dhigaynaa 20 oo kale 20 markaan ka dhigno fiiri hadda qoraalkeena cabirkiisa aad u weynaaday sidoo kale waxaan sameyn karnaa marka rabna qoraalkeena farta inaan weyneyno ama inaan yareyno waxaan isticmaali karnaa labadan commandiga waxa loo yaqaan grow font oo loo isticmaalo in farta lagu waaweynay iyo commandiga waa shrink font oo loo isticmaalo in farta lagu yareeyo marka grow font mar walba wuxuu ku darayaa 2 shrink font marka ku dhufanayno mar walba wuxuu ku jarayaa 2 marka tusaale ahaan anaga hadda waxaan rabnaa inaan ka dhigno farta chapter 1 oo kale 6 oo kale inaan ka dhigno tusaale ahaan introduction oo kale imaano introduction waxaan rabnaa inaan ka dhigno size-keeda tusaale ahaan 14 oo kale sidoo kale waxaan rabnaa intaan ayagana qoraaladan oo kale inaan ka dhigno 12 oo kale marka halkaan furina isha font size marka furno kadib waxaan dooraneynaa 12 inta marka soo gudubno waxay nooga xig marka farta magaceeda sidii loo bedelaa by default word marka documentiga soo kiciso aad rabtid inaad wax qortid waxaad dooran calibri laakiin haddii rabtid farta magaceeda waa bedeli kartaa farta waxa ku jira boqolaal far oo kala duwan oo documentiyada noocyadiisa kala duwan loogu talagalay hadii invitation tahay hadii certificate hadii journal ay tahay hadii warqad ay tahay hadii book ay tahay marka anaga hadda faraha ugu caansan inta badan oo standardka ah oo documentiyada oo professionalka lagu qoro waxa waaye waa Times New Roman iyo Tahoma marka anaga all waxa ka dhiganaynaa farteen oo dhan Times New Roman marka haddii aan rabno all qoraalkan oo kale inaan highlight saarno waxaan sameynaynaa in all sidaan muskeenina soo jeedna ilaa kor aan geeyno ama haddii kale waxaan sameyn karnaa keyboard shortcut inaan dhahno control iyo a ama haddii aan rabno sidoo kale waxaan sameyn karnaa editing groupkan inaan ishaan halkaan aan furno kadib aan dhahno select all dhammaan hadda marka qoraalkeeni selection aan noo dooran oo highlight noo saaran waa inuu dooraya dan waxaan sameynaynaa marka font name-kana bedelaynaa farta magaceeda halkaan isha furaya farta wordka alphabetical order ay u qoran tahay ee ka soo bilaabata laakiin anaga Times New Roman rabna ilaa qaybta hoose imaanayna sidaan u soo soconayna kadib waxaan dooranaynaa marka Times New Roman Times New Roman marka doorno hadda farteena way isbedeshay oo wuxuu noqday Times New Roman okay inta marka ka soo gudubno waxay nooga xiga marka wax loo yaqaano font style font styleska inta badan waxay bedelaan farta oo ayaga waxa la isku yaqaanaa bold italic iyo underline tusaalaan hadda chapter 1 oo kale markii ciwaan waaye waxa la sameeyaa marka in bold laga dhigo marka highlight saarina kadib waxaan ku dhufaneynaa bida marka ku dhufano fiire farteena aad burbur u noqotay way isbedeshay muuqaalkeeda farta aad u weynaatay sidoo kale introduction kale iyadana waxaan rabnaa inaan bold ka dhigno highlight saarina highlight marka saarna kadib keyboard shortcut waxaan sameyn karnaa control B marka dhaano automatically farta waxay noqonaysaa bold haddii rabtid inaad ka qaadid isla bida ku celi kartaa laakiin hadda bida markay ku saaran tahay fartaada bold ee tahay halkan fiire highlight korayo sidoo kale waxa u isticmaali karnaa italic waxa loo isticmaalaa farta inay jiif ay kaaga dhigto tusaale italic marka dhaado fartaada xoogaa way jiifanaysaa marka ka qaadnana way si toos ah keyboard shortcut waxaan ku sameyn karnaa control I oo isticmaalina farta inaan ku jiifano inaan ku soo celino waxa kaloo jiro underline iyada waxa loo isticmaalaa farta in hoos laga xariiqo underline marka dhaado fartaada hoos ka xariiqmaysa fiiri hadda way isbedeshay haddii rabna ka qaadana isla u-dan aan ku xijinayna
haddii kale waxaa samayn karnaa keyboard shortcut oo control U oo underline hoos ka xariiq haddaan rabnana inaan ka qaadno mar kale waxaan ku celinaynaa control U underline-ka marka haddii laba xariiq u baahan tahay tusaale waxaa samaynaysaa inaa ishaan furto isha markaa furtid underline xariiqman kala duwanaa meeshan kusoo baxaayo oo nooca marka adiga u baahan tahay ayaa halkan ka dooranaysaa by default laakiin halka xariijin ayaa la isticmaalaa oo hoos kaaga xariiqayso intaan markaa kasoo gudubno waxaa kaloo jiro streak isaga waxaa loo isticmaalaa ereyada la delete gareeyo oo kale documentiga laga reebay oo kale inta badan lagu calaamadeeyaa tusaale ereygan oo kale biology ayaa waxa u baahanay waa laga delete gareeyo oo kale documentiga inaan dhaano halkaan ku dhufanayna kan marka waxaa loo yaqaanaa streak waxa waaye wuxuu sameynaya ama uu sawiraya xariijin dhexda qoraalka markaas aad dooratay hadda marka anaga ma rabno waan ka qaadaynaa marka streakeena kuwaas intaas waxaa la isku yaqaanaa bold italic underline-ka font style inta marka kasoo gudubno waxay noogu xiga marka wax loo yaqaano change case Microsoft Word wuxuu leeyahay 5 case halkaana waxaa loo yaqaanaa change case oo markii furto halkan labadan ku qoran tahay wuxuu leeyahay 5 sentence case oo xarafka ugu horeeya capital ha noqdo lower case oo small ha noqoto upper case oo dhan capital ha noqoto capitalize each word oo xarf walba ereyga ugu horeeya ha weynaado erey walba xarafka ugu horeeya ha weynaado iyo toggle case oo bilcagsi tusaale markaad waa sameynayna inta markaa fiirino chapter 1 sidan waa weyn tahay owdan waa weyn tahay marka waxaan sameynayna sentence case isticmaalina sentence case marka doorato only sidas kaliya weyn inta kale small ha noqdeen haddii aan isticmaalno lower case all farteen oo dhan waxay noqotay small sidoo kale haddii isticmaalno upper case all farteen waxay noqotay waaweyn marka upper cases ku daynayna laakiin hadda waxaan rabnaa inaan faahno capitalize each word idana waxaa loo isticmaalaa xaraf walba erey walba xarafka ugu horeeya ha weynaado iyo sidoo kale toggle case-ka bilcagsi noqonayo fiiri ereyga capitalka small oo noqday inta small ahna capital oo noqday marka hadda waxaan ku daynaynaa upper case waxaan rabnaa marka chapter 1ka inuu all capital noo ahaado intaas markaa kasoo gudubno waxaan rabnaa marka farta kalarkeeda sidee loo bedelayaa tusaale marka hadda haddaan rabo ereygan oo kale hadda by default markaa wax qorayno wordka farta waa madow marka haddaan rabna kalarka inaan bedelno waxaan samayn karnaa highlight saarina highlight markaa saarno qoraalkeena dan halkaana waxaa font color halkaan ku taala waxaan sameynaynaa marka ishaasaan furaynaa isha markaa furno tusaale ahaan waxaan sameynaynaa farteena oo kale hadda waxaan ka dhigaynaa blue ebel waxay aad farteena madow hadda markaa fiirina farteena waxay isku bedeshay blue marka farta kalarkeeda sidaas ayaan ku bedeli karnaa intaa markaa kasoo gudubno waxaan rabaa marka inaan ku xijiyo text alignments oo qoraaladan oo kale ayadana waa iska karnaa tusaalehaan halkan oo kale markaa la fiirinayo chapter 1 by default markaa laatiinka aad qoraysid qoraalka wuxuu ku bilaabanayaa bidixda laakiin haddaan rabno waxaa haysanaa options kala duwan oo in qoraalka bidix aan geey karno inaan dhexda aan geey karno iyo inaan midigta aan geey karno marka hadda qoraalkeena wuxuu ku bilaabadaa bidix waxaan sameynaynaa marka centerka halkan ka dooranaya paragraph groupka halkan ka heleysaa qoraalka automatically wuxuu tagay qaybta dhexda sidoo kale halkan waxaa ka dooranaynaa align text right oo midigta geey haddaan rabo inaan bidixda usoo celino waxaa imaanaya halkan oo align text to left bidixda usoo celi sidoo kale keyboard shortcut hadaan u baahanahay waxaa sameyn karaa control E oo centerka geey iyo control R oo right midigta geey iyo sidoo kale control L oo bidixda geey marka anaga hadda waxaan ku daynaynaa control E waxaan rabnaa in qoraalkaas aan geynaa qaybta dhexda intaa markaa kasoo gudubno waxaa kaloo jiro wax loo yaqaano font highlight-ka inta badan waxaa loo isticmaalaa ereyada muhiimka oo kale ama definitions oo kale inaa highlight hoos laga saaro haddii aan u baahanahay inaan highlight saarno tusaale ereygan biology oo kale erey muhiim ah definitionkiisa halkan ku yaalo highlight haddaan u baahanahay waxaan sameynaynaa ereygan selection ku sameynaynaa marka ereyga aan doorano rabno inaan highlight saarno dan font group waa imaanaynaa font group markaa imaano kadib waxaan furaynaa halkan oo text highlight color markaa imaano dan waxaa jira highlights ka color badan oo la isticmaalo laakiin waxaa caan u inta badan la isticmaalaa colorkaas oo yellowga marka colorkaas jaalaha isticmaalina hadda markaa fiirino farteena highlight ayaa yacni qaybta hoose kasoo muuqdo kaasaa waxaa loo yaqaanaa font highlight intaas markaa kasoo gudubno waxaa inooga xiga marka commands ugu dambeeyay aan cashirkeena shanaad aan ku qaadi doono clear format
clear formatka waxa waaye marka afartaada formatting aad ku sameyso kale waxaa awood u yeelan kartaa inaad dib aad ugu laabato originalkeedii oo wixii markaas format aad kusoo sameyso aad ka qaadi karto. tusaale waxaan sameynaynaa marka hadda fartaan oo kale hadda kalarkeeda waa soo bedelna, sizekeeda waa bedelna, meeshaan oo kale underline ka dhigna, bold ka dhigna, inta text highlight waxyaabaan oo dhan haddaan rabno inaan baabi'ino oo rabno defaultigii ama originalkii qoraalka inaan u celino. marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa all qoraalkeena waxaan sameynaynaa highlight aan saarayna, highlight markaas saarna kadib halkaan aan imaanaynaa waxaan ku dhufanaynaa clear formatting, then all wixii format oo lagu soo sameeyay fartaasi ayaa uu ka saaraya wuxuuna u celinayaa plain text ama fartii sideedii hore originalka. marka waxaan siinaynaa click markaas siino fartii originalkeeda ku soo celiyay marka laga reebo highlightkan marka clear formatkan ku shaqeynaya. marka hadda u baahanahay inaan ka qaadno idan waxaan ku laabanaynaa highlightkaas isha furaynaa, highlightka markii aan furno then waxaan sameynaynaa no color leenahay sideeda originalka ku soo laabtay. marka cashirkeena shanaad meesha kusoo gabagabaynaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.